سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibada qiimaha badan loo kusoo dhawaada koorsada HTML oo aan qaadan doono maanta casharkii 10aad inagoo ku baran doono laba ciwaan oo kala ah order list iyo HTML definition list. Order list waa in aad list gareyso qoraalkaaga adiga oo ku bilaabaya qaab isxiga sida 1 2 3 4 amaba ABCD xarfaha caadiga ama sidoo kale xarfihii italic ahaa la isticmaalo. waxaad markaa siinaysaa tagga u horeeya isla markaana inta kale iyaga automatically u qaadan doona. HTML definition list iyana waa qayb listiga kamid ah oo loo adeegsado ciwaanada iyo qoraalka hoos imaada. tusaale haddii qoraal dheer aad samayso waxa qasaba inuu yeesho ciwaan. astaamaha ciwaankana waxaa kamid ah qoraalka hoos imaanaya iyo ciwaanku in aysan isku meel ka bilaabmin oo qoraalku waxoogaa ka soo go'o halka uu ciwaanku ka bilaabmayo. HTML definition list shaqadeedu markaa waa intaas, waxaanay ka caawinaysaa qoraalka iyo ciwaanka inay kala saarto oo la kala fahmo inta ciwaanka iyo inta qoraalkii sharaxaya ciwaanka ah. waxaynu aadi doonaa page-kii HTML ee aan kusoo samayn jirnay casharadii hore si aynu samayno lab-kooda itus oo itaabsi ay wax walba ku fiican yihiin. casharkan waxaan soo sameynay casharkii 9aad. hadda waxba uma baahnin ee waxaan baynu uga baahanahay fontiga colorka iyo size-ka wadata. marka intan dhexe waynu iska comment gareynaynaa iyada waynu comment gareynay inta uu commentigu ku dhacay ayaynu xagan ka soo xiri doonaa laba minus commentigii waan iska xidhnay. halkan baynu ka bilaabeynaa qoraalkeena. ciwaan ayaynu samayn doonaa h1 ordered list. waxaynu soo xidhnaa h1 control s waa ciwaanka casharkeena koowaad. waxa kale aynu samayn doonaa ciwaan kale oo ah h3 qoraalkaasi wuxuu ciwaan u noqon doonaa casharkeena order listiga h3 baynu halkan ka soo xidhaynaa. waxaynu si toos ah u bilaabeynaa hadda order listigeeni waxaanaynu ku bilaabeynaa ol oo waxay u taagan tahay ordered halka ashuna ay u taagan tahay list. aan xidhaynaa xogaa bartan baynu ka soo xidhaynaa ol dhexdiisa waxaynu ku qoraynaa waxyaabihii la list gareynayay magacayaashii oo kale. li baynu qori doonaa. l waxay u taagan tahay list halka i-na ay u taagan tahay items waxyaabihii la list gareynayay. halkan waxaan qori doonaa magacayaal tusaalayaal aan iska qoran doonaa. li baynu xaggan ka soo xidhi doonaa. qoraalkan dhexe aynu sameynay ayaynu copy gareysanaynaa intaas control c hoos baynu soo degay halka baynu ku copy gareyn control v. magaca un baynu baabiinaynaa waxaynu ku qoraynaa magac kale. mar kale ayaynu paste gareyn doonaa ilaa waxoogaa 5 ayaynu wadaynaa si aynu isla aragno.
Ctrl V mar afraad. waxaynu qoraynaa magaca u dambeeya Ctrl V. qoraalkii waynu sameynay Ctrl S. browserka ayaynu kusoo kicin doonaa. markaan refresh gareynay noocan bay noo soo baxday. waxoogaa khalkhalaa baa jira. dib aynu ugu laabano page-kii. waxaynaan soo xidhin taggan oo weli furan. xaggiisa dambe ayaan aadi, waan xidhi. sidiisa lamid ah kanna waan xidhi, kanna waan xidhi. dhammaan waan wada xidhaynaa. waan ka ilownay. waxoogaa qaladku waa dhacaa. Ctrl S. page-kii ayaan dib ugu laaban doonaa oo refresh gareyneynaa. iminka tiro caadiya buu qaatay oo automatically u qaatay, laakiin tirada inaga bedbedelayna, inagaana amar u siinayna inuu qaato. page-kaynu tegaynaa. waxaynu tegaynaa halka ay ku qoran tahay OL space baynu bixi doonaa. tape ayaynu qori equal 2 dhexdooda ayaad ku qori shayga aad rabto inuu qaato. haddii uu xarfo yahay baad ugu horreysiin, haddii uu yahay tirana 1 baad ugu horreysiin. marka eeda yaryar ayaynu ugu horreysiin doonaa. Ctrl S. page-kii ayaynu ku laaban, waynu refresh gareyn. ABCD oo yaryar ayuu qaatay. bal mar kale ayaynu bedeli doonaa. intan H3 ay ku qoran tahay ilaa OL ayaan copy gareysan. Ctrl C. OL hoosteeda ayaan ku paste gareysan. Ctrl V. halkan A-da yare ay ku qoran tahay ayaan ku qori doonaa A-da waaweyn. Ctrl S. waan refresh gareyn. waxaa soo galay listi kale oo wataa xarfo waaweyn, halka kuwii hore ay ahaayeen xarfaha yaryar. dib ayaynu u laaban doonaa. haddana mar kale ayaynu tijaabin doonaa listi kale. halkan baan ku paste gareyn. waa kan qoraalkii aan watay aan bartan ku paste gareeyay ayaan bedeli. halkan waxaan ka dhigi 1. Ctrl S. browserkii ayaan ku laaban, waa refresh gareyn. xaggan hoose ayuu ka soo baxay. waa 1 2 3 4. inagu 1 un baynu qornay, inta kale isaga automatically u siiyey. page-kii mar kale ayaynu dib ugu laaban doonaa. listi kale ayaynu kusii dari doonaa. halkaa OL ayaad hoos uga degi, kadibna amaradii aynu haddeer soo copy gareysanay ayaan ku paste gareyn. Ctrl V. hadda ayaa ku qoran. waxaan ku bedeli I oo ah italic, xarfihii italiga. browserkii ayaan ku noqon, waan refresh gareyn. I oo waaweyn ayaa soo gashay. I-da yaryarna haddii aad u baahan tahay iyana OL-kan ayaan hoos uga degi, dabeetana halkaas ayaan ku paste gareyn. Ctrl V. waxaan bedeli halkan eeda, waxaan qori doonaa I-da yaryar. Ctrl S. browserkii ayaynu tegi, waan refresh gareyn. listigii ugu dambeeyay aynu sameynaa waa kan xarfaha yaryar oo ah italic. italiga waaweynna waa tan ka sarreysa. sidoo kale lambarada caadiga ee 1 2 3na waa kuwan. waxaa intaa raacaa A iyo B oo marna waaweyn marna yaryar. marka order list siyaabahaas ayaad uga faa'iideysanaysaa. waxaynu tegi doonaa page-kii. halkan BR ayaan dhahaynaa brick row. mar kale brick row. hoos baynu u degi. waxaynu bilaabaynaa ciwaan kale oo H1 ah. ciwaanka waxaynu ku qoraynaa
html definition list. halkan ayaynu h1 kasoo xidhi doonaa. bartan waxaynu ka bilaabi doonaa definition listiga taagiisii ugu horeeyay oo noqonayo dl waxay u taagan tahay description list. taaga dl xaggan baynu kasoo xidhi doonaa dl. waxaynu qori doonaa taagii inoo haynaya ciwaanka oo noqonaya dt, oo haddii aynu eegno waxaa loo soo gaabiyay ay tahay description term element. ciwaanka ayaynu qori doonaa wasaaradda. intaa markaynu qorno waxaynu soo xidhaynaa taaga dt. waxaynu qornay hadda taagii ciwaanka inoo haynayay, waxaanaynu qoraynaa taagii qoraalka hoos imanaya ciwaankan, isaguna wuxuu ka bilaabmayaa dd taag loo yaqaano. breaking row ayaanu samayn doonaa br si qoraalku halkan uga kala jabo line cusub laynoogu bilaabo. br ayaynu mar kale dhahaynaa si breaking row laynoogu sameeyo. br hoos baynoo degi. waxaynu soo xidhaynaa taaga dd. marka halkan ayaynu kasoo xidhi doonaa halka qoraalkeena ugu dambeysa dd control s. refresh markaynu nidhaahno xagga hoose aadno html definition list. wasaaradda arrimaha gudaha xog ku saabsan waa qoraalkii aynu sameynay, laakiin ciwaanka iyo qoraalku way isfar leegyihiin. in ciwaanku yaro waaweynaado ayaa fiican, marka waynu waaweyneynaa. waxaynu tegaynaa taagan uu ku qoran yahay ciwaanku. halkaas ayaynu ka furi doonaa inagoo aan xindaabka dt-ga dhaafayn. ayaynu qori doonaa style equal double quotation. dhexdiisa waxaynu gelin doonaa font size 2 dhibcood. markaynu qorno waxaynu qoraynaa size-ka 25 baan ka dhigno. waxaynu kusoo xidhi doonaa calaamadaha control s. browserkii ayaynu ku laaban, waan refresh garayn. farta ciwaanku way ka waaweynta farta kale. farti kale hoos imanaysana waa tan. qoraalka iyo ciwaanku inaana isku meel ka bilaabin, ciwaanku uu dambeeyo, qoraalkuna uu xaggan hore kasoo bilaabmay. marka in la kala garto ayuu taagani fududeynaya ciwaanka iyo qoraalka. qaabkaas ayaanad uga faa'iideysan doontaa. waxaan rajeynayaa inaad samayn doontaan laabkiisa isaga iyo order listigaba. wax waliba waxay hirgalaan oo maskaxdaada ay gelayaan marka aad samayso laabkiisa. tan iyo kulanti dambe iyo casharka xiga. sidaas iyo nabadgelyo.